السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونكسن صاحب يرسل هذا مقال كنا نحن كسوق عندنا جوش وين يقفني من آدم وهنتو قولوا ويبدين بس جوش نقف كي هنتا قول بدن أيو جاري دونا جوشان وأساس كقولها أودا تنا الآنتد مقولي سنكر تنا الآنتد من نقوم كرتقف سكفران هذا وام حي جوشاس قفل بوي من آدم وتعلين وجارو أنت المقال كوجود قليل فضل مقال كنولا قري شيرتا كلاون قابتو سكومتي إنه قرب وحي فكر كاجا أما طلعي تصالح ما سندين وشاسي وقلبي وقفك إنه نقض قف قناحسن قلبي سنة هاي مدجن وعن أنت بدن هان قف دع بدن أما قف واعي والبهار والصاحبة قف قلبي يسمر دقو أو قف قلبي كحسلون دجن وحول با وهاجا دونان سيدا وقرح بدن وقونا ونعكسن قفك guuleysanaya number 1 waa inuu qanacsan yahay isku kalsoon yahay hadaba sidee ku hanan kartaa inaad noqotid qof qanaaco leh qalbigiisu xasiloon yahay guushaas weynna u gaartid si Allah subhanahu wa ta'ala kugu fududeeyo waxyaabo badan soo dhow waxaan kula wadaagayaa 4 qodob numberka koowaad waa salaada istaqada salaada ugu horeen waxay tahay waa xariga isku xiraya الله سبحانه وتعالى يا أدونكيس صلاة قفكي كتجاي وقصارة آخرية من الدون أيقوها بات صدقاتنا وحي بدأ ويساعد الرضا قفك قلبي يسئنه نقدم ميدان فردين والولي والبهار كفرية هاي وحا كان عذر كدعي عذر كاسو نغنكرة استرس أما والبهار أما ولا سيادرتي صدقات لبحة سياد نقطين كو داوبا النبي صلى الله عليه وسلم وحيين داو مرضاكم بالصدقة كداوي الصدقة كوين حمص معناها دا صدقة درا لأول بحسد وصدقة والدك أو بحسد إلى سبحانه وتعالى ورجيز إلى والدك وعافيه إلى سبحانه وتعالى كما قال دونه أو واحد يلدون تا حق الله وحكا غيمد أو نصري وقوله قفك مرو والبا والله سبحانه وتعالى الدوادو صونك صلاة يصدقة بكد دالو وامر والبا علاysة badan ka degan markaas darteed numberkaas koowaad ha ka tagin numberka labaad quraan akhriska ood badisid laabtaadu waxay sii noqon doontaa mid si xasiisa u fiirso farxadda ugu badan waxa haysto dadka ahludiinka dhankana quraanka u sii badan qofku mar walba quraanka akhriyo wuxuu la sheekeysanayaa ma la hadlaya Allah subhanahu wa ta'ala إلهي سبحانه وتعالى وجعلها الضوامة حرقي سقبصده قرآن كلهم مدى ينقضى قرآن مدى أدي كود دوده أما مدى أدي حجة شاذكوه أما أدو حجة كون نقنية أما أدو حجة كون نقنية سدرتيد لمبر لابو مرشاد أردن أيو مهم وياي مرولبا كل دقاء نمبر 6 إسكا يرى علالة بدن هنقان قف قوني أجوغا إن بدن دادك قوني دا أبحا إنت بدن نولشودو متوسنا taas anaa ku sheegaya qofku mar walba uu gooni noqdo ama karin noqdo waxa banaanaya mar walba oo maskaxdiisu ay noqoto mid stress ama mid su'aalo badan isweydiin qofku mar hadii questionkiisu badan yahay ama su'aalihiisu badan yahay si ku noqonayaan qof kale oo la falgalan oo sahaysan ama bulsho ku dhex jirin waa qofka koowaad ee ku dhacayo stress qalbigiisuna noqonayo qalbi dhaawacsan mid afraad waa iska yareenta carada badan ama la falgalka dadka carada iyo dulqaad la'aanta u saaxiibka hadii aad tahay qof carab badan isku day inaad caradaada xakamaysid inaad xanaaqaaga yareysid in badan oo kamida noloshaadu waxay noqon doontaa mid saafiya qofku mar walba uu xanaaq badan yahay waa mar walba laabtiisu ay ciriiri dareento macnaha qof baad u xanaaqday qof kale u xanaaqday laabtaada cuqdad baa ka buuxsamay liibaandan ma arkaysid sadarteed mar walba ku dadaa in laabtaadu furnaato cilada dhan yaree waxa kale yareysaa xanaaq waxa kale yareysaa inaad noqotid qof dadka in badan ku dhaca waad ku maasanta saaxiib ila dhamaadka daan la soo gaartay waxaan ku leeyahay kamid noqon halkan ku midownay hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh